haddaba waxaa dhacay wax aan la filayn. Markii loo tegay dhakhtarkii baadhayay, waxaa la ogaaday inay hodan tahay madhalays. gabadhii intay dhoola cadaysay iyadoo isku dhiibaysa ayay naftiiba ka baxday oo hibiqdii ugu dambaysay ay ka soo booday. saaxiibka qaaliga ah soo dhawow, halkani waa Ducaysane Show. kanaalkan waxaad ka daawan doontaa arrimaha jacaylka, qisooyinka nolosha, horumarinta nafta, xogo, warbixino iyo dhacdooyinka ka dhacaya caalamka. si aad uga mid noqoto saaxiibada joogtada ah, subscribe saar, gambaleelkana furo. waxaynu rabnaa inaynu gaarno 10,000 oo subscribers ah. haddaba sidee ayaynu ku gaari karnaa? waxaynu ku gaari karnaa adigoo kanaalka subscribe saara, saaxiibkana u sheega inuu subscribe saaro. way fududahay, waadna samayn kartaa. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. kusoo dhawow muuqaalkeena maanta. qisada aan maanta idinla wadaagi doonaa waa qiso jacayl oo dhab ah, kuna salaysan guurka xalaasha ah, sida uu nolosha dhadhanka ugu yeelo, isla markaana ay noloshu samirka badan ugu baahan tahay. Axmed waa qof iimaan leh, diin leh, oo Ilaahay uu u dhameeyay sharaf iyo weliba dhowrsooni. sidoo kale hodan waa inan eebba uu ku manaystay qurux iyo xishood ay kaga duwan tahay hablaha dhigeeda ah. Axmed iyo hodan waa ilmo abti, waxaa kala dhalay 2 walaal ah. haddaba Axmed hooyadii Cibaado waxay hadda isku dayeysaa inay kala tashato inankeeda Axmed inantahay ilmo abtiga yihiin ee hodan. sida uu arko Axmed dhankiisa arrinkaas aad ayuu u soo dhaweeyey, waana uu ku farxay. Cibaado waxay la xidhiidhay walaalkeed Warsame, waxayna u sheegtay arrinka ay ula socotay. Warsame sida runta ah waa uu ku farxay arrinka. waxa uu sheegay inuu arrinkaasi diyaar u yahay, wax walbana uu dhankiisa dhammayn doono. waxaa la ballamiyey odayaashii labada dhinac. hadda waxaa la gaadhay maalintii la ballamay, waana la is hor fadhiyaa. sidii caadiga ahayd waxaa hadalka furay qoladii inanta doonaysay oo sheegay inay u soo ardaagaleen hodan Warsame. reerkii inanta laga soo doonay waa ay soo dhaweeyeen, waxayna ogaayeen in wiilku uu yahay wiil karti badan, dhaqan wanaagsan, isla markaana ehlu khayr ah, kamana aysan gilgilan inay isla markiiba ay wiilka la noqdaan xidid. arrintu sida caadiga ahayd ee farxadda lahayd, laba isguursatana uu ahaa, ayuu ku dhammaaday. jacayl, farxad iyo damaashaad iyo guur aad u heer sarreeya ayaa loo dhigay labadii Rabbi isku dooray. sidoo kale hambalyo iyo bogaadin ayaa iska daba yimid. guurka markii maalmo laga joogo, dadkii u dhowaa inanka waxay bilaabeen inay ka sheekeeyaan oo ay ku mashquulaan arrimihiisa, isla markaana ay xantaan. waxay sidoo kale bilaabeen inay Axmed u arkaan mid aan gurigiisaba ka dhex bixin marka uu shaqada ka soo baxo, inuu yahay mid markasta iska ag jooga hodan. waxayna yidhaahdeen, ninka maxaa ku dhacay, miyuu sixran yahay? Axmed iyo hodan waxa ay ku nool yihiin nolol aad u qurux badan. maalina kuma ayna fikirin in noloshooda ay xumaan doonto ama cid kale soo dhex gasho oo markaasi khalkhal noloshooda la gelin karin. 3 sano kadib guurkooda, markii ay ka soo wareegtay, hodan reerkoodu waxa ay bilaabeen cadaadis, iyaga oo leh heblo oo dhowaanba la guursaday, gabadh ayay dhashay ama wiil ayaa loo dhalay. sidoo kale Axmed reerkoodii ayaa ku kacay, waxayna leeyihiin ninkii hebel ahaa isku waqti baad guursateen, 2 carruur ayaa loo hayaa, hebel doraad ayuu guursaday, uur baana loo leeyahay. ee gabadhan madhalayska ah maxay ahayd? halka hodan reerkooduna leeyihiin, waa maxay ninkan madhalayska ahi, maxaa ku agdhigay? cadaadis baa uga yimi lamaanihii isjeclaa oo xagga guurka ah. waxa labadii reer buuq iyo muran oo dhex maraba, waxaa la isku afgartay ugu dambayntii in dhakhtar la aado. gabadhii waxa ay ninkeeda ka dhaadhicisay inay dhakhtarka iska tagaan, dadkan buuqoodana ay iska dejiyaan. haddii la ogaado inay xanuuno jiraanna la daaweeyo, allah raxmaankaana inuu arrinta fudayd ka dhigo ayay ku ducaysanayeen. haddaba waxaa dhacay wax aan la filayn. markii loo tegay dhakhtarkii baadhayay, waxaa la ogaaday inay hodan tahay madhalays. kadib markii ay arrinta ogaadeen familkii uu ka dhashay Axmed, waxay bilaabeen xan iyo cay oo marba marka ka dambeeya kasoo siyaadaya. Axmed waxa uu yeedhay hooyadii oo si cad ugu tidhi, 2 qodob soo kala gal, ama inaad gabadhan iska furto madhalaysta ah, iyo inaad xaas labaad la guursato si ay carruur kugu dhasho iyaduna ay gurigan iska joogto. ninkii Axmed ahaa markii ay hooyadii intaas ku tidhi, xaaladiisa waa ay isbedeshay. waxa uu ku yidhi hadal ayna hooyadiisa ka filaynin oo kalsooni ay ku jirto, hooyo, xaqiiqada kuma xidhna dhalmada iyo dhalmo la'aanta. waxaan ka arkaa dareen jacayl oo rasmi ah, kalgacayl nadiif ah iyo dhowrsoonaan.
xaaskayga maalin unbay ii dhali doontaa haddii ilaahay ka dhigo wakhtigan la joogana xaaskaygu maalin walba waxaa ii dhashaa jacayl iyo farxad aan ku ilaaway ubadba aniguna raalli baan ka ahay ee mar dambe ha igu soo celinina inaad tidhaahdaan gabadhan iska fur madhalaysnimada ay ka filayeen inay noqon doonto sabab uu ku furo Axmed gabadhiisa waxayba u noqotay sabab bannaanka soo dhigta jacaylka ka dhexeeya labadooda iyo sida ay nafta isugu horayaan iyo sidoo kale jacaylka ku qarsoon qalbi sanado kadib 9 sano markii ay ka soo wareegtay oo aanay weli waxba isku dhalin oo ay ku jiraan jacaylkii ugu dambeeyay iyo kalgacayl aan kala gool lahayn dariisyadooduna ay la yaabayaan hadallada ay iskula hadlayaan iyo sida ay isku darajaynayaan waxaa dhacday in gabadhii xagga Rabbi qadar kaga yimaado oo ku dhacay cudur laga yaabay oo gabadha xaaladeeda aad u bedelay kadib waxaa la geeyay mid ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn wadanka Sacuudiga dhakhtarkii markuu baaritaan ku sameeyay ayaa waxa uu la hadlay Axmed waxaana uu sheegay in gabadhiisa uu haleelay cudur aan dawo lahayn kuna yar dadka ku nool bariga dhexe isla markaana aanay hodan sii noolaan karin muddo dheer ama wax ka badan 5 sano si kastoo ay noqoto sidoo kale cimriguna gacanta Ilaahay buu ku jiraa ee sidaas la soco Axmed xanuunkii iyo qoomamayntii baa ku siyaaday mar haddii xaaskiisa uu dunida ugu jeclaa ay cusbitaal taalo waxa uu ogaaday in xaaskiisu sanadba sanadka ka dambeeya ay xaaladeeda sii baaba'ayso dhakhtarkina waxa uu ku yiri gabadhan isbitaalka ayaa lagu haynayaa si ay daawooyin u qaadato ilaa inta Ilaahay uu amaanadiisa ka qaadanayo laakiinse ninkii Axmed ahaa ee gabadha qabay dhakhtarku waxa uu rabay uma hoggaansamin mana uuna yeelin talada uu dhakhtarku siiyay wuxuuna diiday in gabadhiisa isbitaalka lagu sii hayo waxa uu ninkii Axmed ahaa isku bedelay mid aad u cadho badan waqti kasta isku buuqsan waqti kastana ka cadhaysan hadalka dhakhtarka wuxuu go'aansaday inaan xaaskiisa isbitaalka lagu hayn ee uu gurigiisa ku hayo oo isagu iska daawado ilaa inta laga manaqaadayo nafta amaanada ah oo isagu ku xanaaneeyo gurigii uu deganaa qol ka mid ah ayaa waxa uu u diyaariyay dhammaan waxyaabaha qofka xanuunsanaya loogu talagalay si gabadhiisa jawi munaasib ah oo hagaagsan ay u hesho wuxuu u diyaariyay qalab qiimihiisu uu la eg yahay 3600 oo riyaalka Sacuudiga ah oo isugu jira daawooyin qalabka dadka miyirka la ama xanuunada ku dhaca lagu kalkaalo wuxuu sidoo kale u diyaariyay qol gaar ah oo isaga iyo xaaskiisa inta uu la joogo ay ku wada nastaan lacagta qiimahaas leeg waxa uu ka soo amaahday bangiga wadanka waxa uu sidoo kale u bandhigay kalkaaliso isbitaalka ka shaqeysa lacagta ay ku shaqeyso mid ka badan si ay ugu baxnaanayso xaaskiisa inta uu shaqada ku maqan yahay maamulka shaqada ayaa waxa uu u gudbiyay in fasax la siiyo wax lacag ahna uuna qaadanin inta uu xaaskiisa xanaanaysanayo laakiin maamulihii shaqada ayaa ka diiday markii uu ogaaday in xaaskiisa darteed lacag fara badan uu u soo amaahday sidaa darteedna waxa uu ku yidhi maalintii waxaad imaanaysaa saacad ama 2 saac waadna shaqaynaysaa waxaadna iska bixinaysaa daymihii aad gashay ama reerkaaga ayaad biil uga dhiganaysaa Axmed waxa uu ahaa mid shaqada saacad ama 2 saacadood jooga isagoo ka fakaraya xaaskiisa xanuunsanaysa iyo maqnaanshaha uu ka maqan yahay waxa uu jeclaa inuu afka cuntada u geliyo balse ay joogitaankiisa xoogaa niyadda ugu dhisato waxa uu ahaa mid ay beerka wax ka go'aan marka ay xoogaa xanuun dareento hodan ugana sheekeeyay qisooyin iyo sheekooyin dhacay si xanuunka haya uu ilaawsiiyo laakiin xaaladda hodan maalinba maalinka ka dambeeya aad bay u sii xumaanaysay Axmed weli waxa uu isku dayayaa inuu dadaal bixiyo si uu xanuunka ula wadaago hodan oo odaygeeda ka maqan yahay ayaa gabadhii kalkaalisada iyada u ahayd waxay u dhiibtay sanduuq yar oo xidhan waxayna ka dalbatay in sanduuqani ay hayso oo aanay cidna siinin oo ay ninkeeda oo kaliya faraha ka saarto laakiin waa goorma waa marka ay naftu ka baxdo maalin isniin ah habeenkeedii markii cishaha la tukaday ayaa Axmed waxa uu bilaabay inuu xaaskiisa u sheekeeyo qalbigeeda uu farxad geliyo gabayo iyo geeraaro iyada uu ku amaanayana uu tiriyo isla markaana uu indhaheeda ku mashquuliyo xarakaad iyo dhaqdhaqaaq balse ay in yar oo farxada u dareento gabadhii inta ay dhoola cadaysay iyadoo isku dhiibaysa ayay naftiiba ka baxday oo hibiqdii ugu dambeysay ay ka soo booday ninkii isaga ahaa ee Axmed ilin baa ka soo qulqushay waxaanu ogaaday in xaaskiisa ay sidaas naftu kaga baxday naxdintii uu ka naxay darteed wuxuuba ku sigtay in isaga laftiisa ay naftu ka baxdo salaadii subax kadib markii la tukaday gabadhii waa la aasay 2 maalmood kadib markii ay gabadhii sii aasan tahay ayaa waxa uu yimid ninkii gabadhii kalkaalisada u ahayd xaaskiisa ee u baxnaanin jirtay oo sanduuq yar u sida waxay aragtay ninkii quruxda badnaa ee shalay lacagta siinayay ee gabadha ka xanuunsanaysay aad moodo
sidii qof 10 sano xanuunsanayay oo aan waxba cunin oo sida kale uu dhammaaday darteeda. Hase yeeshee gabadhii inta ay u tacsiyadeysay ayay ku tidhi, xaaskaagu waxay ii dhiibtay sanduuqan waxayna iga codsatay inaanan qofna siinin ee aan adiga ku siiyo maalintii ay nafteedu ka baxdo. Ninkii isaga ahaa sanduuqii buu qabtay uuna furay wuxuuna ku arkay quraarad, waana quraaradii cadarkii markii ugu horreysay ee uu guursaday uu hadiyad ahaanta ugu keenay. Waxaa kaloo sanduuqa ku jiray sawir isaga iyo hodan ay wada galeen habeenkii arooskooda ugu horreeyay. Waxaa kaloo sanduuqa ku jiray in yar oo mara ah oo cad oo ay ku qoran tahay uxibuka fillah, ilaahay dartiis ayaan kuu jecelahay. Waxa ay kaloo tidhi, waxaad jeceshahay ninkaygiiow inaan noolaado, aniguna waxaan jecelahay inaan kula noolaado. Ilaahayna wuxuu doonay inuu noloshayda qaato, tii ilaahay baana soconaysee dulqaad oo samir yeelo. Warqadaas waxay ugu qortay qoraal dheer, laakiin qoraalkeeda hadalkii ugu dambeeyey waxa uu ahaa, ninkayga aan jecelahayow guurso marka aan geeriyoodo, sababtoo ah cudurdaarka aad u guursan weyday waxa uu ahaa inaad anigay dhowrayso aadnay jeceshahay, laakiin maanta cudurdaar kuma yaalay guurso. Waxaanan kaa codsanayaa ubadka ugu horreeya ee aad dhasho haddii ay gabadh noqoto inaad magacayga u bixiso. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan aad daawatay. haddii aad ka heshay qisadan waxaan kaa codsanayaa inaad like saarto siina sheer garayso. waa inoo muuqaalka dambe. wasalaamu calaykum.